وكفي عينك بنان كجوجي دبعته كل عيسو وأما قفل كل ما يمرك وحف يعني مين لصاحر أيوب الصومالي بيو برنا يسكيلو بعد ترادونا دلالي سيدوحو سمايني أما أدل سعوت دوحو سمايني أما مالك استكل مدة كعجة صار دعدا ويا وحوها وحقوق قاعدنا يعني لكن maaragtay dhaqankeenii dib u dhigay way dhaqan kala soo dhaxgash waxayna ku xidhan tahay inuu inagu xoojineen isku kaashan Marianne waxa wax kasta iga daran xanuun bay hay'ad wad saganaysa iska xanuun dumar saasa la fuuqay qaraacaya oo halkan balaay saabeenkii ugu degdegay bahalkan la emergency-ga waka afku ma go bahalkan wax geeyma haysto Faadumoy ما في عنا حنون كمركو كسرته إن الدكتور كلا تجا emergency نادوك ما توم باني واحد كل يدو باهن تاعي إن أوجاتو إن لا يسبار سنة تجيب مر أو تشيك إن لا يسكر هذا جود وحنا دو أدوم بوكين باحي تاع الدكتور هذا اللي تجا حنون كان ما في عنا إن لا قد بتجا ومركا كسرته بس تاع نقطين الدكتور هذا تجنين عادة ولا يعني مو هناك سنة تاسو وحويان انتو حنونكم كهلي هرت واحد اسكو سميسا تشيك wax la yiraahdo jira ayo udul waxay walada heestaa tiri udulka hortag baa ka cawaaqib roon daawul oo xusabo Oh my god Abbe Ingiriiska waxay dhahaan prevention is better than cure الوقاية خير من العلاج بيترا عربتنا marka waa wax mid oo isku raacsan Oh my god صح in laga hortagay wuxuu dhan ka sheekeynaysa xanuunka صح Yeah, someone already to get. هذا نصير وضعنا لكن مركي أو you know فرحنا نصير. Oh. Yeah, why? Oh. Hey, Zahra, how you doing? Hey. Wait, is my mama there? Yeah, well, Farhi, Ismail. Sagala. Whoa. Damn, look, this Gurgi is so crowded out with her, you know? Yeah. Oh, what my mom is at? The plates are getting bigger. We've only got a lot of dishes to wash. 2 more plates. Hey, look at this couple. Oh my god. They look so cute. Hey, what's up with you? How you doing? I like your tight. Thanks. You gotta turn around for me. I like your dress. She looks Ain't she great. look cute? Yep. Oh my god. naag gabadha islaameed seedu graaminaysa Hi, Adar Ahmed. Hi, Adar Kiskaleto. baa waraga saha u salaamin waxa weeyaan wax maanta dhalinyarada maanta ku sheegayna saasoo meedhan weeyaan maxaas maxaa ka macna ah adii anyway kada sheeke badan igu khoofuraha ka carraan caabeysawe goortisan waa caabeys don't worry okay thank you Ayaan Hey girls. Hi Daphne. Hey Farhiya. Hoyo. Qofta ma lagu baro Farhiya Minnesota. Istaynta lagu magac daray so school keedita is very popular. barasho wanaagsaneed Ismail Tali. Iga waran warinkiite. ana la igu maawelinay ma roos baan lagu maqnaa waa xilli dambe saacadana roos laga imaado waa fiide anyway arooskii isku dhacayo ana arooskii isku dhacay maaragtay laba koox isku dagaaleen hotelkii ayaa booliis u yeereen marka way naga khaseen anoo waa we having fun you know fun anoo heesana naga khaseen waa boogi ma buraanburka isku laayo buraanbur ma la isku dagaaleen laba koox isku dagaaleen reer St. Paul iyo reer Minneapolis dalaha iska garaacayno anana qasan xaraaradana ugu weyn nasiifra isku waxaan ka gaaraynaa gurigan ku we going to have a fun wana anigu furo kuma sinaan u deema qaana dadka sidaan furo ku siyaa guriga bay saaka dhaqaynayaan waxa kan dhalinyarada banaanka ugu sugaysa yaasin sqiipe iyo Ahmed Dheere iyo dhalinyarada dhan iyo Ashi Snow iyo كل بناك نقصوا جاي نسي. ولا نسنو ما قانا تذكر نقول جالس ما كنا نفرقوا مسينا يو. فلا نسي أنا حرارة نوجو أنا. أبحنا أنا. أما تسكسيسي دوح كستابعي كريه ولا ما تسكسيسي. فاضو. لأن يرد فرها سي. حدي عن سين لو جرجو قلانين. ميل كدير بيتجيا. لكن كدنا يرد والله درين رياي كافي جني. إسماعيل لو حنو كسوينا. إنه مركو وفره صار نقضوا عاود نجلا قيب قالوا عويسك دقنك هيسكسي شوفتو قبل دويه أوكي هذا الشرع يا كيال أنت هو سلا أحمد يري بنفرق وجودي بيا
caawa duruus baa meesha ka jirta caweysa waa inaad soo noqotaa ay u ogtahay kuwan kula socdayna bugtay dantaa qayladii dadka dariska si ugala tagaan soco soo noqo igu halay faadmo hadda ismaaciil sidii loo dhagaysanayso madana qiimi inaan xun maaha inaan kaabo inaan wanaagsan weeyaan idinkaan isfahmin oo isku dhacay ma ogiye inaan wanaagsan weeyo uma yiri carruurta uma yiri run waaye eedo waxyaalo badan oo isku fahminaa jirto waalidka iyo dhalinyarada sababta taana waxaa keenaysa waxaa wax kasta waxaa laleeyahay ceeb waa iyo waxaa ma samayn karta ceebta iyo qaladka maxaa keenaya waa ina u explain garaysay laakiinse also in laga wada hadlo keliya maaha markay qalad imaato communicationku waa very important in the family inaa u sheegtid waa wixii ceeb ah inaa xataa u sheegtid waa wixii iska daynayaan inaa sheekooyin u sheegto laakiinse haddaa dhahdid markaan isla hadlano waxaa waaye maraan kuu sheegaya waxaas ma samayn karto waxaas ma soconayso soomaali walba waxaan ka dhaadhiciya waxaas waa ceeb laakiin waxaas iyo waxaas ceeb ku yihin haddii la sameeyo oy ku khaldan iyo ku xun yihin soo idinma idhaahdo hase weeyaan carruurta uma yiri walaale awa caruuska beel u ahaan lahaa haddii aysan naga qasi lahayn dhalinyaradii way you know wiilka iyo gabadha saaxiibo ayaan ahayn wiilka iyo gabadha 2 sano ayay wada socdeen 8 bilood kadibna waxaa isguursaday 8 bilood kadibna odayaasha ayaa laysa siiyey na 4 bilood kabacdina waxaa dhacay waxa la dhaho nikaaxi waxayna kala qaateen محل شيء قايينه قبادي قبادي something like that قبادي هو كذب أرنتاس كذب عوضنا وحوها حلفدي آد كوينة هوتيل كلو جديجي sabtidaan soo socoto waxaa la dhigaynaa anagii saaxiibadeena thanks party wax la dhaho axadda soo socoto waxaa la ii sheegay inaan aadayno saashaar wax la dhaho something like xataa waxaa jira xeera food party I don't know كبعدنا وحال سمينا يا أولا آذا يا honeymoon Hawaii Caribbean Island somewhere in Europe oh wow ولا دمي يا روس أدري مقعد بحيرتنا معريري قاسي قشة بدك لا أدري وحن ذويدي عرور تنون مربع الدنيا ذي دينا عرّ عضي إلا يا صار مدة صدق هذا السنة كله العقد وصار فرق يسي هذا هاواي يقول أنا قرنا الله يدوي هذا يا عروت مدة تشارو بعد لا يوم ما حياة العكس الله في الرقية قرما سجور كي أنت النوع لقد جاي ترى إنه حيردينا ماشي في تلك على الجلي مايا إذا واحد إسكي كينيا قسن ويل كو حطوا من صدح شقة قبضنا الله شقاية تنتي هاشي العقد أروسدنا ما بقى إنسان صار دافين با إس دون كي إيو أروسكي محل لها مهركي إيو برامبوركي ما بقى إنسان صار دافين با حتى عوض أروس كان وين هوتيل كلاجو دقي يوحي كدم بيو أردن سفر ذا ذي باردية ذا دم بأردن وحال حقها كريدت كارد وحول بإيزوية على يو فاطمة يا مريم ما حين كلا قيد كليني عاود النيرة قابكي كورك إيو أروسك الصومالي ده هانشري ووشة كينا I feel sorry قولكم فريدا با wax primitive ah buu ahaaye balse aniga Ismaaciil inuu na anfaco guurka ka sheekay sidaad u haysataan الله هوغنا maxay tirnayndaada kan bacda faadmo walaal gabadha saan walaal had martaba inoo tahay umiyiri arrutu waa loo miyiriyaa barukaadi هو والفاطمة فرحي من صور وقف آد شعتروا لي قصر لي ومركب واحد هذا وإحنا وقاعدين إيده yeah حملنا I think she's only kidding لكن who knows أحكي كودا لقيها بقى هو على فجر yeah dhalinyarada iyo waalidka qurbaha wada jooga maxaa kala haysta is-afgarin waaga cidaba sibay ku sheegtaa hase ahaatee misunderstandingka waxaa keena generation gapka su'aalahan idin hayna maanta idinkoo dhalinyaradii ah wax baranaysay oo hadda ah dhalinyaro laakiin berri noqon doono waalid bal had saad u aragtaan waxaan idin weydiinaa su-aasha ah waa maxay is-afgaran waaga idinka dhexeeya idinka iyo waalidkiin
hadda u badbaadtiin berina waalid waa noqon doontaa haddii ilaahay ka dhigo allah idinka dhigo haddana waxaad moodaa xiriirka idinka iyo balwaalidka idinka dhexeeya is afgaranwaaga ka dhex muuqdan qoys baa ka timaadaa hooyii aabaa jooga ayayaa joogta abtii adeer wixii aan lahaan jirnay baa jira iyo adiga oo xoogaad moodid inaad farqi idiin dhexeeyo dhaqanka isaga ah maanta jira America ama meel kastoo dibadda loo baxaya maxaa noqon kara ka sheegi kartaa magacaygu waxaa horta Sadiiq Cabdisamad aniga run ahaan su'aashaas waxaa arkaa horta waagii Soomaaliya la joogo waalidka waxaa weeyaan aad iyo aad ayaa loo adeeci jiray waa lama khidi jiray waxay dhahaan ayaa la yeeli jiray laakiin maanta markaa Maraykan nimi waxaa waalidku waxay weli haysan maartay culture-kii hore Soomaaliya ay weli ku dhageeyaan marka waxyaalo badan aan iskaga hor imaanayna jiro waalidka hadda Maraykan markaa nimi waxaan aragnay waxyaalo badan maartay waalidkan kaga saxsanaa iyagana waxyaalo badan inoo saxsanaa jiro markaas run ahaantii waxa iska hor imaadku waxa keenay waxyaalahaas ka mid ah Maraykanka nimi ee culture-ka Maraykanka baddaas aan u nimaano weyn marka waxa waay dhibaatada marka jirto waxa waay waalidka cabsi ku jirto oo inay cunugooda oo dhaqamadaas kale iyo diimahaas kale ama uu ka gaaloobo ama waxaas oo kale ma rabo marka waxa waay waxay rabaan anaga dhaqankeena ku dhex jirno oo waqtigeeda guriga la imaan jiray gabadha ay maarto oo aan dhaqankeena haysanadaas oo السلام عليكم مقعي وحواي فايزة سعيد ودكان والدك ay rumaysan yihiin in ay carruurta ku dhumayaan laba goorba just madaxa waxa ka jidho ama gabadh ama wiilka yani haday gabadha soo tahay ama waxa ku maqanta waxyaalo ama yani just wada waxa maskaxda waxa ku jidho in ay carruurta dhumayaan markay carruurta imaadaan waalidku u sheegaan meesha ku maqnaa ama wax waalidku ku qaylinayaan mana rumaysanayaan ama يعني حكا دحدعايا لبدودا سي اف فهم لa'aan ayaa ka dhaxdhacay marka aan waxa u maleynaa waxaan laga dhex jiro waxa waaye in la rumaysanaynin cunuga warkiisa waalidka cunuga ateeshiiseenin ama warkii wixiisa uu sheegay oo cunuga loo qaadanaynin qof weyn ahaan aniga saa ognahay wadankan dadku carruurtooda waxay u dhaqmaan si dad dhalinyaro koran oo carruur weyn ah meesha dadka marka anaga carruurteena waxa aaminsanahay yani hadii dadkaas saas loo dhaqmaa anaga waalidka hadii la jecel yihiin yani alisman rumaystaan oo si caad noola hadlaan oo yani si dad waaweyn saahadoodii wixii anaga waalidka ugu sheegno cunuga hadii hadhow lagu qayliyo oo la dhaho saan xisaab marka hadhow runtii kulama imaanayo hadii walaa wax ku la sheego runtii kuma sheegaa meesha ku maqara hadhow cunugii markii wixii laga dhadhacsiyo ama wax ama galaashis laga hadlo أنا واصل قانا قال اسكلا هذا هسه أنت هاد حلقة سكون مقنعة سواي هذا لحن حوار اسكت ورنا عنقي عقدة وقاضايا عقدة أو حقاضايا يوه نوع كره واسكت هسني هاي ذاتك سواي هذا يدي محوي دهايا حتى سديت من قارو وكتجايا بدي بعتنا لن بقيس هاي دافت عنقي هو يسوي كل سديت من كاجر وكتجايا. I think the problem between youth and families or parents is that we are in a new culture since we came to America, and there isn't enough understanding between parents and kids or parents and teenagers. I think the problem is that it's because we don't communicate enough. waxawaaye midda koowaad waalidiinta waxay haystaan mataqaanaa dhaqankii horeeto dhalinyaradana dhaqan cusub ayay la yimaadeen which dhaqankoodii horeeto ayagoo wax ka haysta ee haddana waxay la qabsanayaan wax la dhaho dhaqankan wadankan cause ardayda ee mar walba ay is arkaan ama ay saaxiibada soo xisla dheelaan kulli waxa waaye dhaqan kale ay wada aaminsan yihiin marka it's difficult markii oo guriga lagula dhaqmaayo dhaqankii Soomaalida banaankana ay dhaqankii hore ula tagaan marka waxay la soo baxayaan dhaqan labadaba u dhaxeeya taasna ilaa hadda waxay waalidiinta aad ayay uga soo horjeedaan which says maxaa Ingiriis uga hadlaysaa camal waxay ku leeyihiin oo kaleeto maxaa saan ugu xiranaysaa saan ugu labisanaysaa amsa qofka dhaqankiisa waxa noqda waxa la laho personalities ama dhaqankiisa wuxuu mataqaanaa ku dhacaya kii dhaqankii banaanka
iyo kii guriga marka labadii taas ahaanta dhibaatada xaggaas mar walba